الله naxariistay agaasimihi Amal Bank iyo shirkadda Amal ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Cabdisalaan Sheekh Axmed oo dadku ay u yaqaanaan Shiishigo ayaa maalinimadii shalay ahayd ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Axmed Madoobe gaar ahaan nabad sugidda ee uu hogaamiyay Khaalid Sheekh Cabdullaahi waxa ay ku dileen xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo xilli uu socday masaajid salaadii duhur dadkii goobta lagu dilay marxuumka Allah naxariistay joogay ayaa ii sheegay in asagoo lugaynayo oo socdo masaajidka oo ka daba yimid gaari bensal ah isla markaana ay inta hor istaageen dhahan istaag markii uu istaagayna lugta xabad kaga dhufteen dabadeedna inta dul yimaadeen ay dhibib tireen marxuumka ayaa 10kii bishan waxa lagu xiray xabsiga nabad sugidda Axmed Madoobe ee Fiad xilligaas oo ay weydiisteen lacag $25,000 oo baada taas oo ay sheegeen in lagu dhisay darbiga madaxtooyada marxuumka oo ka cagajiidaya baada lacagta tirada badan ayaa la sii daayay wuxuuna qoyskiisa la wadaagay hanjabaad kaga timid madaxweynaha saddexaad ee maamulka Jubbaland luga dheer taas oo ku aadaneed baada lacagta sidaas darteedna safar degdeg ah ayuu ku aaday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya halkaas oo uu joogay dhowr iyo 10 cisho Allah naxariistay marxuumka ayaa daraa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo isagoo markii uu ka degay garoonka Kismaayo ay ku carqalateeyeen saraakiisha Axmed Madoobe oo qaabilsan garoonka ugu dambeynna shalay ayaa qodha uga jireen magaalada Kismaayo dilka marxuumka ma aysan sheegan kooxda al-shabaab sidoo kalena kama aysan hadlin maamulka Jubbaland oo lagu tuunsan yahay in ay ka dambeeyaan dilkiisa الله naxariistay Cabdullaahi Cabdisalaan Sheekh Axmed Shiishigo agaasimihi shirkadda Amal ee magaalada Kismaayo ayaa lahaa laba qoys oo u deganaa magaalada Kismaayo wuxuuna ifka uga tagay 11 ilmood oo kornimadooda ku jiray dhanka kale 11kii Sebtembar qarxii kooxda al-shabaab ay ku qaarajiyeen Allah naxariistay gudoomiyihii rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka Jubbaland Shaafi Rabbi Kaahin isla markaana ay sheegteen mas'uuliyadaasi ayaa waxa kooxda Axmed Madoobe ee ka arimisay Kismaayo ay dusha u saareen marxuumka lagu dilay magaalada Kismaayo beeshiisa taasoo keentay in dad badan ay baraha bulshada ku daabacaan dilka Shaafi Rabbi oo ay dusha ka saarayaan beel gaar ah isla markaana ay sheegayaan in loo aari doono Allah naxariistay marxuumka shalay lagu dilay magaalada Kismaayo ayaa maantay waxa lagu aasay isla magaalada Kismaayo isagoona aaskiisa ay ka soo qayb galeen boqolaal dadweynaha Kismaayo odayaasha beesha sade ee magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay dilka marxuumka Allah naxariistay waxayna ku eedeeyeen in marxuumka dilkiisa ay ka dambeeyeen maamulka Axmed Madoobe ee Kismaayo isla markaasina waxay baaq u direen isla maamulka Axmed Madoobe si cadaalad loo horkeeno dadkii ka dambeeyay dilka Cabdullaahi waa dhintay qofkuna wuxuu aaminsan yahay buu sheegay Cabdullaahi waxaan aaminsanahay Kismaayo banaankeeda inaan looga imaan ee laga dilay magaalada Kismaayo laguna dilay AKM ninka dilay kalsoonidu uu ku dilay waxay ahayd gaari watay xabad buu ku dhuftay waa uu dhaawacmay waa uu dhibtiray hadana gaariga lagu dilay gaari filar oo cad oo muraayada madow oo targalaan u ah koolay baana dishay arintaasu waxay cadeynaysaa in laga dilay maamulka banaanka loogama imaan waxa lagu dilay markii la dilayay rag gaari wato oo hubaysan oo ciidan ah dilay gaari muraayadaha u xiran oo madow baa dilay loo soo tagay dadka shacabka ay fiirsanayeen dadkii masaajidka ka soo baxay iyo dadka shacabka wadooyinka maray si cad bay u fiirsanayeen ragaasi waxay rag akayaal wato oo Soomaali ah tuhmaynana inay yihiin ragaas raga ciidanka oo magaalada joogo inay Cabdullaahi Shiishigo dadka dilay dad qarsoon ma aha hameena lama dilin luuqna laguma dilin waxa lagu dilay meel barabara ah stationka magaalada Kismaayo qadar buu u jiray qadar ciidamada maamulka Jubbaland meel walba waa marayeen ninkii islaha horta waxbaad qarinaysaa qarsoodi baad wax ku dishay ilaahay kama qarsoona Allah subhanahu wa ta'ala 7 saac oo maalinimo ay ahayd cid walbana waa arkaysay dibkaas wuxuu ahaa Allah u naxariisto marxuum Cabdullaahi Cabdisalaan Sheekh Axmed yaa ku geeriyooday magaalada Kismaayo gacan buu sababsaday bini aadan
hamayn ma ahayn, luuq ma ahayn, xaafadaha dhexdooda bartankoodu ahaa, jidcadahan Soomaali Star oo laamiga goynayuu ahaa, xafiiska Amal iyo masaajidka suuq weyne dhexdooda oo u sii socda masaajidku ahaa. arrintaas ayada ah oo sidaasaan u qarsoonayna fagaaraha ku dhacday oo xaafadihii oo dhan laga fiirsanahayay oo markii hore laga dhaawacay baabuurka gudihiisa, markii dambena loo soo degay oo la dhidib tiray yaan shirka jaraa'id ka qabanna. bannaanka loogama imaanine maamulku inuu tilaabo ka qaado, raggii asagaa la soo qabto, haddii alla kuu rooyay cadaaladda la hor keeno, wixii ay cadaaladda ka mutaystaana la mariyo. ma ahan markii ugu horeysay oo ay ka dhacda dil noocaan ah magaalada Kismaayo oo ay ka dambeeyaan maamulka Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ee ka arrimiyo magaalada Kismaayo.